بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. cashirkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa percentage composition ama af Soomaali ahaan samayska boqoleed ee isku dhisyada. Definition qeexitaan. What is a percentage composition? What is percentage composition? Waa maxay samayska isku dhisyada ee boqoleed? Percentage composition samayska isku dhisyada ee boqoleed is defined waxaa loo qeexi karaa ama waxaa loo qeexaa inuu yahay as percentage by mass. Waa boqolkiiba culays ahaan of the various element oo ay leeyihiin curiyayaasha kala duwan kuwaas oo ku jira in a compound isku dhis dhexdiis. Sababtoo ah isku dhisku ama compoundku wuxuu ka kooban yahay many elements joined together. Waa dhowr elemente oo isu tegay. Marka curiyayaashaas ku jira compoundka ama isku dhiska dhexdiisa ayaan raadinaynaa mid kastaba boqolkiiba inta uu yahay. Formulaha aan isticmaalayno formulahan waaye percentage composition oo loo soo gaabiyo calaamadaas. Wuxuu la mid yahay mass of element curiyaha culayskiisa oo loo qaybiyey molar mass of compound culays molecuulka isku dhiska kadibna lagu dhuftay boqol. Example-ka koowaad ama tusaalaha koowaad, calculate xisaabi percentage composition by mass samayska boqoleed ee isku dhisyada culays ahaan ee uu leeyahay curiyaha nitrogen marka uu ku jiro in ammonium nitrate oo formulaheedu uu yahay NH4NO3. waaya halkan waxaa noogu jira saa u jeedaan laba atom oo nitrogen ah. nitrogenka isku soo darso waa laba atom. hydrogenku waa 4 atom. oxygenkuna waa 3 atom. sababtoo ah horey aan usoo qaadanay subscriptiga waxay noo cadeeyaan ama noo tilmaamaan inta atom ee curiyahaasi uu ka kooban yahay. waayahay periodic table haddaan fiirino nitrogen atomic masskeeda ama culeyskeeda wuxuu noqonayaa 14 gram per mol. hydrogen waa 1 gram per mol. oxygenna waa 16 gram per mol. molecular mass ama molar mass aan usoo gaabino m capital culeys molecuulka ammonium nitrate aan raadino wuxuu la mid yahay nitrogenka oo 2 atom ah oo lagu dhuftay culeyskooda 14 ah oo lagu daray 4 atom oo hydrogen ah oo lagu dhuftay culeyska hydrogenka oo 1 ah oo lagu daray oxygenka culeyskiisa waa 16 waana 3 atom 3 lagu dhuftay 16 iyadana 2 haddaan 14 ku dhufto waa 28 lagu daray 4 hal ku dhufo waa 4 lagu daray 3 haddii lagu dhuftana waa 48 haddii la isu geeyo totalkana waa 80 gram per mol. hadda waxaan raadinaynaa saddexdii curiye ee uu ka koobnaa ammonium nitrate mid kastaba percentagekiisa mid kasta percentage compositionkiisa. waaya waxaa noogu horeeya curiyaha loo yaqaano nitrogen oo loo soo gaabiyo n capital symbolkeeda ama sumadeeda culayskeeda waa 28 oo loo qaybiyey culays molecuulka oo ah 80 oo lagu dhuftay 100. waxayna soo bixaysaa calculatorka haddii aad qaadatid 35% ama 35 boqolkiiba. percentageka hydrogen wuxuu noo noqonayaa hydrogen culayskeeda oo 4 ah oo loo qaybiyey molecular mass ama molar masska ama culays molecuulka oo 80 ah oo lagu dhiftay 100
iyadana 5% soo bixi ama boqolkiiba 5. ugu dambeyn percentage-ka oxygen waa culayska oxygen oo 48 ah oo loo qaybiyo totalka molar mass ama molecular mass ama culays molecular oo 80 ah oo lagu dhiftay 100 asagana waa 60%. haddii la isku wada dardaro waa 100%. kaas wuxuu noo noqonayaa example-keena koowaad. example-ka labaad waxaa nala siiyey ama nala weydiiyey calculate soo raadi ama xisaabi the percentage composition by mass culayska isku dhisyada ee boqoleed culays ahaan of the elements oo ay leeyihiin curiyaasha kale ah sodium carbon and oxygen marka ay ku jiraan in sodium carbonate. okay m waxaan u qaadanay molar mass ama molecular mass ama culays molecularka. marka m capital oo sodium carbonate sodiumka 2 atom waaye carbonka hoostiisa waxba kuma qorna laakiin hala u qarsan 1 atom waaye oxygenkana waa 3 atom. haddii periodic table-ka aan fiirino sodium atomic masskeeda waa 22.999 waa iska 23 gram per mol. carbon waa 12 gram per mol. oxygen waa naqaanaa oxygen asagana waa 16 gram per mol. marka anagoo adeegsanayna saddexdaas macluumaad aan raadina culays molecularki wuxuu noo noqonayaa 2 atom oo sodium oo lagu dhiftay 23 oo lagu daray 1 atom oo carbon oo culayskiisu uu yahay 12 oo la isku dhiftay oo lagu daray bracket 4 3 atom oo oxygen oo lagu dhiftay culayskeedu 16. labadan haddii la isku dhifto waa 46 hal 12 ku dhifo 12 3 16 ku dhifo 48 waa 106 gram per mol. boqolkiiba sodium ama Na waxay la mid tahay culayskeeda oo 46 ah oo loo qaybiyo molar masska ama molecular weight-ka ama molecular masska ama culays molecularkeeda oo 106 ah oo lagu dhiftay 100 wuxuuna noo soo baxayaa 43.39. carbon boqolkiiba culayska carbon waa 12 loo qaybiyay 106 oo culays molecularka ah oo lagu dhiftay 100 waa 11.32%. ugu dambeyn percentage-ka oxygen culayska oxygen waa 48 loo qaybiyo totalka ama molar masskeeda molar masska compound-ka oo 106 ah oo lagu dhiftay 100 waa 45.28%. ardayga haddii la isku wada daro waa 99.99 waa iska 100. sintigaas maqan waa la heli karaa haddii bointiga kadib 3 tiro aan qoro waa la heli karaa inta ka dhiman oo ah wax aad iyo aad u yar waa un iska 99.99. qaabkaas ayaa loo xaliyaa percentage composition calculations xisaabaadka boqolkiiba isku dhisyada sidaasaa loo xaliyaa. isku dhiska boqoleed xisaabaadkiisa qaabkii fududaa ee hadda aan u xalinay ayaa loo xaliyaa. haddii aad ka mid tahay ardayda ama dadka ku xiran kanaalka Baro Chemistry oo aad horey subscribe u soo saartay aada ugu mahadsan tahay. haddii aad nagu cusub tahay saaxiibow subscribe like share and comment. wixii su'aalo ah commentiga ii soo dhiga waa idinkaga soo jawaaba insha allahu tacaala. qaabkaas ayaa loo xaliyaa samayska isku dhisyada ee boqoleed ama percentage composition.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.